بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قدونك بارلمانك فدرالك سوماليا حلبان هذا شرفت له دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت سيدا أي قضياشي قدونك نوعها أي وتاريخيين وتلمامين ومالين آدي مهم هو تاريخ ذا عصب الصومالي ذا عصب ما أنت هنا قاضي wadadii maxaa saxda ee ku dhaqaaqday. waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo wax yar oo taariikhda laga hadlay hadda qaar ka mid ah. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo caalamkuba waxa uu marqaati ka yahay Soomaaliya iyo Ethiopia shalay daris ma noqon, muddo fog oo qarniyaal ay daris ahaayeen. qarniyaashaas ay dariska ahaayeen in badan oo ka mid ah 600 sano 700 sano lagu qiyaasahay taariikh la yaqaano oo qoran ayaa ka dhaxaysay. taariikhdaasi taariikh aad iyo aad u qurux badan ma ahayn. taariikh dagaal iyo cunfi iyo colaad iyo burbur ku salaysan ayay ahayd. taariikh jihaad waxa la yiraahdo iyo crusade waxa la yiraahdo oo saliibiyiinta iyo jihaadiyiintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd. taariikhdaas muddo dheer ay soo tixneed dagaaladii hadda dambe oo gudoomiyuhu uu ka hadlay oo inta badan Ethiopia nooga imaanayay, laakiin marmarka qaarkoodna annaga naga imaanayay dabcan yaan soo marnay. wadadaas iyo taariikhdaas waxay ku soo dhammaatay 1990kii markii dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxda ka ahaay ay collapse garowday. dowladdii Ethiopia oo Mengistu Haile Mariam oo madaxda ka ahayna ay collapse garowday. labada dowladoodba ay burbureen. taariikhdaas soo socotay ilaa qarnigii 15aad bilowgiisii iyo qarnigii 14aad meeshaas ku soo dhamaatay. laba dowladood oo cusub ayaa Soomaaliya iyo Ethiopia ka hana qaaday. jamhuuriyadda saddexaad ee maanta annaga aan madaxdeedii mas'uuliyiinteennii kan aan nahay ayaa Soomaaliya ka hana qaaday. dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah waxay isu sheegeen inaan loo noqonin taariikhdaas dhibka badan ee hore loo soo maray ee colaadda iyo burburka iyo dhibaatada labada dal ka soo jirtay. dadka Soomaaliyeed si dhab ah ayay go'aankaas u gaareen in ay colaad ka jeestaan oo ay u jeestaan nabad iyo maxaan ku yiraahdaa daris wanaag iyo wada noolaanshiyo. waa midaas mid aan ku keenay sloganka maanta aan haysano oo Soomaaliya heshiis ah, duniduna heshiis la ah, duniduna dariskeena ka bilaabataa aan heshiiska la nahay. nasiib darro inkasta oo dad badan oo Soomaaliyeed mar walba ay qabeen dalkan aan dariskana Ethiopia la yiraahdo colaadaasi kama dhamaan yaa la qabay, laakiin dad badan qabay waxyaabaha socda waxyaabo duruuftu keentay waaye colaad ma aha way iska dhamaan doonaan aan dul qaadan. Ethiopia xumaanteed iyo burburkeed iyo kala qaybsankeed kamaana shaqeyn annagoo waliba asbaabo badan oo ay dad badan jeclaalahaayeen inaan uga shaqeyno aan sheegi karno ama aan haysano loo soo istaagi karno. maanta bishii January 1deedii 2024 waxaa dhacay wax cusub waay. waa curato maanta la joogo curato ku ah duruufta jirta, laakiin aan curato ku ahayn taariikhdii hore ee aan soo marnay aan curato ku ahayn waay. cid awood u leh dalka Soomaaliya cad ka mid ah inay bixisahay ma jirto. awoowayaasheenaa diiday, aabbayaasheenaa diiday, hooyooyinkeena iyo ayeyaasheenaa diiday, annagaa intaan nooleyn hadda diidnay. sina suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta Soomaaliyada aan haysano oo aan waliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn, laakiin haddana aan inaan horumarsano nabadayno maxaan ku yiraahdaa dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxino aan ku ballanay maanta in ay cad ka mid ah u baxaayso dadka Soomaaliyeed ma ogola.
meel kastoo ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda banaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay Soomaali qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxa 1 January Addis Ababa ka dhacay qaanuunka caalamiga ay ka soo horjeedaan international law waxay ka soo horjeedaan international customary law xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaado hab dhaqanka caalamka ka jira ee dawladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan ka soo horjeedaan sina dhaqangal kuma noqon doono haddana dhaqangal kuma ah waxaa intaas dheer taariikhdeena ka mid ah walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya ku nool ama Somaliland dadka Soomaaliyeed ay ka tirsan laakiin taariikhya la kala leeyahay deegaan kasta taariikh uu leeyahay taariikh caam ay leeyihiin qarni hore aabayaashii iyo awoowayaashii dalka iyo deegaanka deganaa waxay diideen isticmaalkii caruurtiisu inay ku dhalato dalka heshiisyadii ay galeen waxa ka mid ahayd naag ajnabi ah oo isticmaalka gabdhahooda in aanay ku dhali karin dalka oo haddii ay dhalayaan ay baxaan ay dibadda ilmooda ku soo dhalaan si aanay dalkan xuquuq iyo sheegasho ugu yeelanin taariikh hore oo maqaar ku qoran way maanta haddii ay nool yihiin maxay dareemi lahaayeen maanta qarniga 21aad awoowayaashaas caruurtoodii qaar ka mida dalkii aan gobol ka mida bixinayna inay dhima laha nolosha inay hore ka dhima lahay wadnuu istaagi lahaa u malaynaya haddii ay noolaa lahaayeen daw ma aha taariikhdaas sharafta leh oo qiimaha badan ayaa waqooyiga Soomaaliya iyo dadka degan ay ka soo jeedaan welina waa aaminsanahay dadka waqooyiga Soomaaliya ku nool heybadaas iyo sharaftaas weli waa leeyihiin aan qabaa berigii Soomaaliya annagu taramkii hore aan madaxweyne ahay oo ayna haysatay arrintii badda ay taagneed ayaan ogahay dareenka iyo fariimaha ka imaanaya waqooyiga Soomaaliya sida ay ahaayeen ayagoo koonarka kale Soomaaliya biyo dhul ma ah dad ku nool yahay biyo jadda jiro oo badweynta India kamida la isku haysto dareenkoodii aan ogahay biyihii kale dhinaca kale agtooda ahaa maanta waa la bixinayaa in la yiraahdo sina suurtagal uma ah waan hubaa in aanay ku faraxsaneen kuna farxi doonin aanay aqbali doonin waa hubaa waxa intaas dheeran dadka fariinta kale uu rabo inuu farxo tahay walaalayaal Ethiopia aqoonsi idin ma hayso aqoonsiyan idin siin haday tiraare aqoonsi jira ma aha dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto wax kasta oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasta oo hore la dhaafay wax kasta oo tabasho ah oo jirtay ma gooyso dhulka qaar ka mid ah bixinayna in la yiraahdo marna ee aqoonsiyan ka dalbanayna ma gooyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliya degan inaan xusuusiyo taariikhda Ethiopia iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii daba meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Ethiopia ay la midoobeen iyo ogolaanshii Ethiopia ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas naga ma jirto dawladda Ethiopia waxaan leeyahay dadka reer Ethiopia mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaaha daris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadalaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawiyada faraha badan maanta ay geeygan geeska Afrika ay ka jiraan
in yaroo shidaala lagu sii shubaahay sax ma ah soomaaliya etoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe prime minister abiye axmed waxaan leeyahay faragelintii malla zanaawi markuu etoobiya madaxda ka ah soomaaliya uu ku sameeyey al-shabaabaa ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabkii ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas-uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo ka mida aan ka hayn inta kalena aan ku sii soconno fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalayaa ugu dambeysay degdegsiinyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xalay wuxuu ku hadlayay waad maqlayseen fursad kale iyo slogan kale oo dhallinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaano ama wadaadda ha ahaadaano ee si uun u fogaaday lagu soo recruit gareeye shabaabku ay ku helaan dhallinyaro badan oo ay soo xeraystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhallinyaradii ay ka soo wada tegayso arrintaani waa arrin kale oo fursad kale abuurayso waaye nama qabato soomaali haddaan nahay meel kastoo aan joogno gobolka geeska afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalayaa oo meel kasta colaadi ka hursan tahay soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska afrika ka soo dhex iftiintay oo nabad iyo maxaan ku raha deganaanshiyo u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arrintaani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arrinta ahayd oo shabaaboo sii dhimanayane aan tallaabooyinka aan qaadaynahay ay dhiig ku shubaan aada iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer somalilan ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinkama soo jirto halkan waxaa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxaa la yidhaha camal walaal ama carada walaalka gasha camankay gashaahaa la yiri carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalkaa haddii uu kaa caroodo haddee waa walaalka xaggee tegayaa barye unbuu isgooni yeelayaa laakiin marka dambe haddaad la hadasho carabkaa looga bixiyaa macnaheedu waxa waaye waa la wada hadlaa wada hadalkiiaan ogolayn wanaagaan ogolayn weligeen iskuma dayin gobnimada soomaaliya sovereigntiga dalka soomaaliya ee dowladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas-uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaanku idhahdaye lagu waxeeyo somalilan weligeen kamaanaan shaqayn hadday colaadi ka dhexdhacda dhexdoodana mar walba hadalkeennu wuxuu ahay hala dego hala dejiyo hala heshiiyo oo hala nabadoobo waan ka shaqaynay waana ka shaqaynaynaa welina waa kasii shaqayn doonaa ka caajisi mayna haddii allayidhaah laakiin dalku waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawo kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifo aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo na siinaysa dhulkeenna qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskale generationska soo socda ee qarniyaasha soo socda soomaalida ee jiri doona ayaa iskale geyiga sidaa daraaddeed waxaanan annagu lahayn awood uma lihin inaan bixinno wada noolaansho iskaashi dhaqaale waa waxa aan raadinayno oon suuqa bariga africa aan uga mid noqonnay oon muxuu ahaaye home economic integration initiative-ka la yihahdo aan u wadno on wax uga shaqaynaynay gobolkaana inuu wada barwaaqoobo oo maxaanku idhahdaye wada nabadoobaan ka raadinaynaan ka shaqaynayn kamaanaan shaqaynayn inaan gobolkaas weynaan jiryo hayna soomaaliya dhexdeeda inaan cunfi colaad ku soo celma rabno walaalayaal shalayna waa naga go'nayd maantana weli waa naga go'an tahay taako dhulka soomaaliya ka mid ah inay baxda ma ogolin sifo aan ku bixi karnana ma lihin annagu sidaan horeyba ummadda soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba
taaka dhulka Soomaaliya kamid inay baxdo waa ku celinaya taaka dhulka Soomaaliya inay baxdo ma ogol aan isku kaashano dalkanaga inaan difaacano aan isku kaashano inaan ilaalino gayigeena wada jirkiisa Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ayaan ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkana waa uga mahad celinaynaa nagu kaalmeeyay inaan dhulka ilaashano maanta waa ka taagroonnahay intii hore hadday tahay xag dowladnimo hadday tahay hay'ado dowladeed iyo hadday tahay diblomaasiyadda muruqa diblomaasiyadda aan leenahay hadday tahayba intii hore waa ka taagroonnahay waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Itoobiya wax badan oo wanaagana way naga soo dhaxeeyeen wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen ka soo jeestaan lana wado idinka ma jirta meeshaas bad haddaad rabtaan dekada haddaad rabtaan macaamil adduunya haddaad rabtaan si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan la isku khilaafsanayna jirto wadadu meeshaas idinka jirtaa soo mara laakiin nin maanta jooga ama federaalka ha jooga halkan ha taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo mid dhulka Soomaaliya kamid idin si kara ma jirin ha ku kadsoomina leenahay hadii aan yiraahdo walaalayaal aad iyo aad u maasantihiin ballanteenu waa maxay dalka Soomaali baa leh meeshaasaan joognaa waana u dhimanaynaa waana difaacaynaa waana waxaynaynaa meel kastoo ay Soomaaliya ay dhulkeeda ku aad iyo aad u maasantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh